fariintiini waana soo gaartay laba fariimood oo muhiim ah oo dadka reer Muqdisho ay soo direen ay jirtaa oo fariintooda aan gaarnay mid aynu soo gaartay mid waxa way biyahaas in wax laga qabto oo iyo daadadka mar walba magaaladan ee ku soo rogmada oo dhex fadhiista oo jidad magaalada kala gooya oo dadka dhibaateeya oo guryaha biyuhu ay galaan taa in wax laga qabto waa qodobka labaadna waxa weeye amniga hadiiba magaalada fiicnaaday in dhagxaanta la qaado ayagana waa fariimaha ka imanaya bulshada waxaan leenahay bulshada reer Muqdisho fariimiin oo soo gaareen waana la sameeynaya hadii la yiraahdo arrintaas gudoomiye waxaan gobolka faraynaa inay u hawlgalaan sidii wax loo qaban lahaa waan hubaa inay ku dhex jiraan oo aysan labadan habeen seexan aad ordayeen laakiin haddana waxaan u baahanahay in sideedaba in magaaladan habka ay hadda biyuhu ay u fariistaan iyo siday ku socdaan iyo laamiyada la dhisayo maalin walba dhisaysaan way isdiidan tahay marka waxaan u baahanahay habkii dhiliinka ahaa ee biyuhu u mari jireen ee saxda ah in la raadiyo oo magaaladan biyaha laga saaro dhibaato badan oo muddo dheer lagu soo qabay baa jirta jidka la sii dhisaana wax weyn ma keenayo meeshii biyaha shubayeen buu celinayaa kadibna waxay noqonaysaa inay xaafado kale ku dumaan marka culays badan ay ka jira magaalada wadankeena maalmahan waxa ka socda roobab waaweyn iyo daadad ayaa ka socda runtii dad badan oo fara badan oo nus milyan Soomaaliyeed gaaraya ayaa dhibaatooyin fara badan runtii daadadkaas ay u geysteen oo ay qixiyeen oo caawa iyaga dadkoodii waaweynaa iyo caruurtoodii iyo hooyooyin ayaa laga yaabaa inay banaanka ku umulayaan oo aysan haysan isbitaallo aysan haysan guryo iyo shelter iyo meel ay galaan oo aysan haysan cunto dawo inta midna aysan haysan marka culayskaas haysta dadkeena sayba u sii kala daran yihiin runtii gobolka Gado oo dhibaato weyn ay runtii meelaha qaarkood ay soo gaartay iyo baay meelaha Bakool kamid ah ayaa ugu sii daran marka waxaan rajaynayaa inaan la qaybsano bal marka hore dareenka iyo xanuunka dadkeena haysta dhamaanteena aan isku dayno inaan ka qayb qaadano dadkeena sidii lagu gurman lahaa dawladdu way dadaalaysaa wixii tabara ma yaraysanayso duruufaha lagu jiro iyadoo runtii caalamkana waa u qayshanay waa la kulannay wixii ay hayaana waa arkaynaa iyo dadaalkooda dawladdeennuna wixii hayso oo dhan waxba may mana hakranayso doomaan geynay oo si aad garanaysaan doon intaas leego weyn oo diyaarad baa lagu qaadaya la dhahay waa iska garan kartaa culayskay leedahay haddana inaan maantana baar dheere geyno daraadna aan geynay luuq runtii waa hawl wanaagsan bay ahayd wax fiican baynan ka qabatay dadkana wax badan bay u tartay waxaan rajaynayaa dhammaan ugu baaqayaa hay-adaha iyo cid kasta oo dalkan joogta iyo dibadiisaba in dadka Soomaaliyeed arrimaha caafimaadka oo runtii daadadkan waxa ka dhasha taqaanaan shumbiyood malaria qaniin iyo masas iyo wax walba waxyaabooyin fara badan baa ka dhasho culays ah marka in arinta laga hawlgalo oo hay'adaha dalkan joogay dhamaantood ay ka hawlgalaan ayaan faraynaa runtii intii kale walaalaha arrintaas waxa nagala qaban kartana waxaan ka codsanaynaa inay wax nagala qabtaan dadkeenana waxa la rabaa waajib ku ah inay iyaguna ay isgacan qabtaan ciidamada qaranka kala duwan kuwa xooga booliska iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada ee jooga deegaanada ay wax ka dhaceen waxa waajib ku ah inay dadkooda garab istaagaan oo ay ka shaqeeyaan badbaadada caruurta iyo hooyada Soomaaliyeed ee meelahaas ku dayaan ama duruufaha ku hayaan in badan baa runtii laga digay haddana waan ka digaynaa inay dadkeenu isku dayaan dadka dooxooyinka iyo meelaha biyo mareenada degan inay ka guuraan cabsi badan baa jirta weli oo la sheegayo inay sii badan karaan roobabku maalmaha soo socda marka inay iska ilaaliyaan oo ka guuraan waa laga maarmaan